arrinta ku saabsan baarlamaanka bari la dhaarinayo waa meel la gudbaayo oo baaxad soora ah oo ay laga maarmaanta inaan dib looga dhicin si ay u caddaato in doorashadii si dhab ah loo gudagalay bari hadduu ilaahay maayo waxaa dhismaaya hay-ad dowladeed oo cusub oo doorasho ku timid oo baarlamaankii la yiraahdaa dhismaysa marka dhaartaasi waxa weeye waa baaxad soore la gaarayo weeye oo aan ilaahay ka rajaynayn inay si nabad ah oo guul leh ay ku dhamaato oo halkaa lagu gaaro waxay bixinaysaa walwalkii laga qabay in doorashadu ay carqaladoodo waxay bixinaysaa walwalkii dadka qaar ay lahaayeen waxa laga qabaa in haybo doorashada doonaya inay ama dib u dhigaan ama khashkhashaadaan ay jiraan waxaasoo dhan ay meesha ka saaraysaa kulanka iyo dhaarinta bari baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya markii la fiiriyo caqabadaha jira ma ahan caqabado dabiici ah caqabado la sameeyay way oo siyaasiyiinta qaar ay door bideen in ay sameeyaan waa laga gudbi karaa caqabadahaas laakiin dadka lagama gudbi karo caqabadaha waxaa looga gudbi karaa dee dhaarta bari ah hadduu ilaahay idmo micnaheeda maahan cid damba ma dhaaran doonto maaha dhaarta baarlamaanka shahaadooyinka qaatay intii caawa qaadata ayaa dhaaranaysa munaasabada way 14 abriil oo lagu wada hiranayay marka cidii kale oo baarlamaan asta hesho oo soo gasha ama la doorto ama hadda inta la doortay ay wax ka xaniban yihiin oo la soo daayo markooda ay dhaaran doonaan marka dhaarta macnaheeda ma ahan bari kaliya ayaa dhaaru jirtaa macnaheeda ma waxaan aniga isleeyahay markii bari dhaarta ay dhacdo waxaan ognahay inay jiraan xildhibaano aan la dooran wali boosas aan la buuxinin baan ula jeedaa waxaan ogahay kuwo aan shahaadooyinka qaadan oo ama xamar jooga si siyaasadeed u jooga meelaha ama maqanba oo xamar ka maqan oo xitaa kuwaas koonfur galbeed bay dhaba jooga aan ahayn marka kuwa in la dhaariyo oo baarlamaankii lagu soo daro oo baarlamaankii la dhammaystiro aqalkii sare waa dhammaystiran yahay aqalkii hoose oo aqalka dadka la yiraahdo golaha shacabka la yiraahdo oo golaha shacabka markii si kale loo yiraahdo golaha dadiyowga Soomaaliyeed ay tahay oo haddii si fiican loo sii fasiro meesha qabaa'ilka Soomaaliyeed ay ku kulansan yihiin iyo goboladaba oo xitaa ay fadhiyaan xildhibaano ka imanaya dawlad go'day oo ayna waxba isku darsan sidii uu burburay dawladdii dhexe ay u burburtay ay ku jiraan way marka ka in la dhameystiro oo 235 la dhameystiro way talaabada labaad ee ay tahay in la qaado munaasabada dhaarta markii bari laga gudbo laakiin aan ku xusuusiyo bari waxa dhamaanaya dispensationkii si dhab ah waxa u dhamaanayo xataa maxaan ku raasii hayntii xilalka ama baarlamaankii hore ama xukuumaddii uu dhalay ama dawladdii uu dhalay iyadoo dhan qof xafiis jooga iyo dawiska munaasabado waa iska waji qurxin laakiin bari waxa dhalanaysa hadduu ilaahay idmaayo dawlad cusub baa dhalanaysa oo baarlamaanka markii la dhaariyo baarlamaankaas baa nasiin doona madaxweynaha aan doonayno ay iyagu doortaan maxaan ku raahdaa isagaasa ra'iisul wasaare nasiin doona isla baarlamaanka gudoomiye baarlamaan nasiin doona ra'iisul wasaaraha ayaa wasiir nasiin doona marka bari sidaas ay laga maarmaan u tahay maalin muhiim ah u tahay runtii oo sidee u kala sareysaa loo kala qaadaa baa leeyahay arrinta bari joogta dhaar oo la doonayo in waqti yar ka dambana gudoomiye baarlamaan la doorto xalal kale oo la raadinayo ma jiraan maamulka Jubbaland oo mandate-ka u haystay in uu doorashada qabto inuu qabto way meeshan 16 xildhibaan oo gobolka Gada ka timi inay soo galaan baarlamaanka way iyadoo la sameeynayo wax kasta oo suuragal ah oo ay sidaa ku dhici karto marka xalalkii iyo analyse-kii iyo hebel hal suuga iyo maaragtay xalana soo hadashay iyo kuraasta kala goosta iyo maaragtay waxyaabihii maaragtay yaxyaha aha waa la soo dhaafay diblomaasiyiin baan arkaynay dhahay hebel hal si inta soo kursi yani baadama qabiilkiisa oo maaragtay halka ka yimid diblomaasiyiin shisheeye amaana marka taas waa la soo dhaafay arrintaas way dhamaatay xalku waxa weeye in maamulkii mandate-ka u helay sida maamulada kale oo dhan ay ugu heleen goboladooda inay ka dhistaan maxaa la yiraahdaa xildhibaano inay ka soo saaraan sida ay rabaan ha ku soo saareen waana si aan wada ognahay sida ay xildhibaanadu ku yimaadeen si la mid ah inay xildhibaano u soo saaraan 16 ka maxaa la yiraahdaa mudane
ay ka soo qayb galaan doorashada guddoonka ayaa laga maarmaan ah. Xalkuna halkaas u jira 73 baan noqon karin. Dalkani horey buu u socdaa, cid loo diiday inay baarlamaanka soo gasho oo shahaado heshay ma jirto. Kuraastan kale oo waa la qabtay, fiid baa qabatay la leeyahay, oo maanta way u safreen lalahaa Baydhabo ay u safreen si ay tabashada ay u soo xaliyaan. yacni fiid shaqadeeda ma aha tabashada. Soomaaliya dhibaato ka dhacday oo waxa weeye wax walba qoladii rabtaa qabanaysa. Dhowr sano oo la soo dhaafay awoodo alla ku sii aha iska jiray oo qof aan xil lahayn wuxuu rabo uu sameeyo. Maaragtay si siyaabaha ka mid ah ay loogu hoggaansan yahay ilaa markiis. Marka si kastaba ha noqotee caqabad kuma noqon doonaan baan u malaynayaa. Maxaa yeelay ninka ugu waayeelsan baa baarlamaanka berri si ishraafaya oo la maamuusaya dastuurkaana qaba. Isagaasa ayaa maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha baarlamaanka in la doorto agaasimaya. Agaasimka intii lagu jiro bay iman doonaan 72ka iyo wixii laga sii daayo 4tan iyo haddii 4taba la sii daayo iyo maxaan ku rahaa mudane Allah u naxariistee Jubbaland aha oo dhintay bedelkiisii iyo kuwayaasha kale oo siyaasadda u maqanba markooday soo gali doonaan. Marka ma umaleynay inay caqabad noqon doonto. Bulshada rayidka ah adduunka waa wax xoog badan oo dastuurka ilaalisa, oo dawladda dadka ka ilaalisa, oo dawladda markii ay saxan tahay dadka u abaabusho oo iyadu garab istaagta, oo qadiyaadka taagan maxaa la yiraahdaa maaragtay dawladda ku garab istaagta, dadkana ka ilaalisa. Waddankeena Soomaaliya hay'adihii aan dawliga ahayn oo cuntooyinka qaybinaya ama MCA-jada maamulaya baa yaa u ah bulsho rayid loo yaqaana bulsho rayid. Taasina sax maaha. Bulsho rayid waa dadka oo dhan weeye. Ururada bulshada oo dhan weeye, culimada ka mid ah, waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ka mid ah, waxaa ka mid ah dhakhaatiirta ka mid ah, yacni professionals oo dhan baa ka mid ah bulsho rayid. Cidii aan dawlad u shaqeyno marka xafiis dawlad aan hayno dhan baa la yiraahdaa. Marka kaalintooda inay qaataan waxaa ka horeysa horta inay is aqoonsadaan oo ay maaragtay aysan la kala safan siyaasadaha hadduu ilaahay maayo la isku hayo ama gobol uu ku haysto dawlad federaal ama laba federaal ay isku haystaan ama laba gobol ay isku haystaan inaynan la kala safan. Markii dadku qofku u muuqdo inuu dhexdhexaad yahay oo markaana dan la yaqaan uu ka shaqeynayo oo caam ah, markaas baa la dhihi karaa maaragtay awoodaha jirana ay ka baqayaan, iyaguna ay isla soconayaan oo si kalsooni leh dadka indhahoodana ay wax weyn oo maangal ah uga noqonayaan. Marka waxyaabaha maqan bay ka mid tahay doorka ururada bulshada oo Soomaaliya ka maqan. Doorka saxaafadda waxyaabaha Soomaaliya ka maqan buu ka mid yahay oo maxaa la yiraahdaa saxaafaddu oo ololeynaysa maaragtay shuruucda inaan la jabinin oo ololeynaysa daryeelka bulshada diidan maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq oo dhan. يعني maaragtayna hadda iyaduna ma muuqato musuqmaasuq hebel na waa la diidayaa musuqmaasuq hebel na waxa la fiirinayaa dhinaca kale. Marka way jirtaa marka waxyaabahaas maqan oo dalkeena ka maqan oo runtii ah waxyaabo sababaha uu meesha u yaalo way bulshada rayidka ka mid tahay. Bulshada rayidka inay siyaasadda ku milmaan maaha, inay siyaasiga ka ilaaliyaan way shacabka dadka la doortay ama si siyaabaha kamid ah ku yimi marka talahaya inay hadduu ilaahay idmaayo waxa weeye ay ku ilaaliyaan ballankii ay bulshada la galeen social contract waxa la yiraahdo inay ku ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan kuwaas inay isku dayaan inay yani soo doonayaal noqdaan inay ka ilaaliyaan weeye. Marka sababta bulshada rayidka siyaasadda ugu diidaysa inay siyaasiyiinta challenge gareeyaan waa sida aan soo sheegay oo bulsho rayid oo xoog leh oo abaabulan oo aan iyadu ajanda gooni ah lahayn ama siyaasiyiin gooni ah ku xirnayn oo heer Soomaaliyeed oo isla taagan ma jirto. Taasa keenaysa marka inay doorkoodii uu ka daciifo sidii uu noqon kari lahaa. Abaarahani hadda adduunka baa qaylinaya. Soomaaliya ma laga guuri doonay oo egtahay bay qaar leeyihiin saadaasha cimilada ma fiicna, laakiin nasiib darro dawladdeeni uma soo jeedo. maxaa la yiraahdaa waxa la isla wada arkay shalay madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadlayay oo hal marna aan abaarta soo qaadin baa la isla wada arkay.
marka waxaa la dhihi karaa uma jeedno waxaan doorashooyinka ahayn hadda uma jeedno inkastoo madaxweynaha doorashooyinkan uusan soo qaadin maxaa la yidhaahdaa maaragtay lafteeda oo laga yaabo inuu maaragtay arrintaa ciidanka keliya maaragtay uu abaarayay oo ayada lafteeda su-aalo ay ka iman karaan si kastaba ha noqoto abaaraha waa wax na hortaagan oo waxyaabaha khasab ka dhigaya inaan doorashada degdeg uga soo farxalno si aan danaheena ugu soo jeesano oo abaaraha wax uga qabanno oo cudurka wax uga qabanno oo wadajirka bulshada wax uga qabanno weeye laakiin abaartu midna sugaysa maaha nin maalin dhaweyd igala soo hadlay meel ka mid ah gobollada Soomaaliya oo saaxiib ahayn wuxuu yiri weligay gaajo intaan la eg intaan noolaa ma arag ninka isagii weligii Soomaaliya kama tagin marka abaaraha ilaa xadkaas ay marayaan meelaha qaar maamul xuma u dheer oo maxaa la yiraahdaa yaa la socota marka waxaan rajaynaynaa in lagu baraarugi doono markii middan laga soo jeesto si degdeg ah ilaa idankiis in abaaraha lagu baraarugi doono laakiin aad bay u daran yihiin abaaraha wallaahi aniga dhinacaan ka taagnahay inuu soo hadal qaadin unbaa yaa la fasiran karaa maaha sababtaan u soo hadal qaadin dee maaragtay lama garan karo yani thought processka yani maaragtay dhaqaaqa fikirka oo maxaan ku raahdaa hanaan fikireedka ku soo dhamaaday inaan arrin intaa la eg oo dadkii baabi'inaysa laga hadlin ma la sharxi karo qof banaanka ka joogo calal aqal anigoo kale ma sharxi karo laakiin waxay muujinaysaa in maaragtay waxaan out of touch la yiraahdo dadkii inaan lala xanuunsanayn oo lala damqayn xaaladooda inaysan si dhab ah u olin daskiga madaxweynaha maxaa la yiraahdaa waxyaabaha jira in ka mid ah oo gaar loo meehahay kaliya in maaragtay madaxweynaha focuskiisa lagu aadinayo bay u ekaan kartaa waxaan rajaynayaa haddaba fursaddan uga faa'iideysanayaa weli ma dhammaan in maxaa la madaxda oo dhan ay ka hadlaan oo madaxweynuhu ugu weyn yahay inay abaaraha ka hadlaan oo ay wax ku bixiyaan oo dadka u horkacaan oo ay u abaabulaan yani deeqo oo ay meelaha qaar canshuuraha ka daayaan iyo maxaan ku raahdaa mashaakilaadka yaalla oo ay u danqadaan maxaa la yiraahdaa dadkooda abaaraha ay waxyeeleeyeen hadda lafteeda fursad tagtay maaha waa laga faa'iideysan karaa laakiin sida ay ku timid inaanu ka hadlin dad yar un baa sharxi kara way suurageli weyday in inta doorashada gacan lagu qabto gacanta kalena lagu abaarihii lagu daryeelo waa wax badan baa la isku dayay ra'iisul wasaaraha iyo waa isku dayeen aniga waxaan ku jiray guddi heer qaran ah waxwaa dadku wax way bixiyaan laakiin dareenka dadka si buuxda waa loogu jeedin waayay abaaraha waxaa lagu jeedaa doorashooyinka marka waxaan leeyahay doorashooyinka degdeg ha loo dhameeyo si abaaraha loogu soo jeesto yaa aniga sida iila sahlan waa sidaas inta hadda abaaraha ka shaqaynaysa ha ka shaqayso ilaahayna khayr ha siiyo maaragtay ajirna ha ka siiyo guulna inay ka gaaraan baan u rajaynaynaa inta la sii tacaalaysa laakiin kuwa ku sii jeeda si aan doorashada inay kuwa ku sii jeeda siyaasadda kaliya iyo doorashada kaliya si aan ahayn inay doorashadu dhammaato oo madax cusubi soo baxdo si aan ahayn maxaa la yiraahdaa oo ay ugu soo jeedsan karaan abaaraha iima muuqato marka doorashadana degdeg in loo dhameeyo inta abaaraha hadda ku jeedana ay sii laba jabaaraan hadduu ilaahay idmaayo dadaalkooda doorashada markii ay sidaa u dhammaatana in maaragtay loo wada jeediyo dareenkii iyo dadaalkii ummadda oo dhan in dhinacaas loo jeediyo ayaan anigu arkayaa inay tahay sida ugu sawaabsan